walaalayaal waad salaamantihiin heesta waad maqasheen dilna kabiiroo daadooy dadkeed duqooy looma diro iyo waa u diraa waa u soo digaa usmaa diidi karaa heesta waxay furitaan u tahay barnaamij dhaxalgal ah aan ka reebnay abwaan cabdulqaadir nuuraale barnaamijkaas oo la magax baxay heesti xamar caddeey oo maanta ah 30 guuradii 30 sano ayaa ka soo wareegatay abwaanka inuu maanta uu gartay heestaas oo uu fasiro ummadda soomaaliyeed iyo qowmiyadda banaadir oo dhan ku soo dhowaada khadar yar oo xayeysiin ah abwaan cabdulqaadir nuuraale 32 sano abwaan cabdulqaadir alla marooya seed u aragtaa baashan xagee iska qabalaaday السلام عليكم رير بنادر وإذن سلامي ويا بنهي أنا وحن ليا بنهي ويو أنا إيو الأبوان شريف جيك مر وحن سميني رواية أهيد محاهري أو ليسكو هايستا هادنا وحن سميني دلمي أن لغدودين لكن هدي أنا اسكو نخذي dadkii la rabay inay kuwaana qaataan waaba ka sii dareen abwaan cabdulqaadir nuuraale su-aasha koowaad sideed u aragtaa beryahan dambe qowmiyadda banaadir waxay la soo baxeen waxyaabo cajiib aan dhaqan u lahayn kuwaasoo ah waad aragtay doorashada ugu dambeeyey kuraastii beelaha banaadiriga ku qornaay qabiila qaarkooda kii dhaho aniga kaasaan ahay kii dhaho aniga kanaa qaba kii lahay kii dhaho aniga kaasa ahay kii dhaho kaasaan ahay kii dhaho waa feertamaa kii inkaartamo kii haddana toobad cabis weydiisto ma laga yaabaa 40 sano xasan sheekh marka u dhammaado haddana kuwaada loo dhiibi inay saas dhahaan abwaan nuuraale su-aasha labaad waad la socotaa dhallinyarada loo baahnahay inay maanta annagana beddelaan ama wax ay bartaan yaa ilaa hadda inay ku jiraan qolalkii whatsaappyada ama facebookyada qabiilkaasaa ka badan qabiilkaasaa ka fiican kan maaha weli inay kala qeyban wadaan dadkii aan dheene dhallinyarada berito waaye ilaa hadda ilaa dowladihii hore weli waxay joogaan aflagaado iyo kala qeybin qabiil iyo ammaan shaksi oo qabiil ah ama xildhibaan ah ama siyaasi ah marka dadkaas maxaa laga qaban karaa ama maxaa loo sheegi karaa ama see wax loogu sheegi karaa nuuraale su-aashaan saddexaad way culus tahay jawaab fiicanna way u baahan tahay waxay taabanaysaa qowmiyadda banaadir gaar ahaan dadkeena fanaaniinta ah kow waad la socotaa inta ka hor in buug la sameeyey banaadire oo ku qornaay gebagabadii gibil cad gibil madoow miis guursadaan haddana buuggaas kadib waxaa soo baxay afaan u bixiyey datooreysa baxdhac in whatsappka la keeno ay ka sheekeyso taariikh reer banaadir laakiin alxamdulilah nin oday ah oo ixtiraam nagu leh ayaa u jawaabay wuxuuna ku yiri heblaaya ii sheegtay iyo hebloa ii sheegi buug iyo taariikh ma lagu qoro haddaadan haysanin wax caddeen haddii loo baahdane codkiisa waa soo degi karnaa ninkaasaa hor istaagay
hadda waxaa soo baxay sida la sheegayo weliba isoo gaarin buugga laakiin waa lay soo masibiray fanaan qowmiyadda banaadir ku weyn ummadda soomaaliyeed ku weyn marxuum qaasin hilowle oo taariikhdiisa abtusad aan hayo buugaa soo baxay buugyaal badan waa soo socdaan nina wuxuu soo qorayaa waxaa lagu qoray abwaan marxuum qaasin hilowle khamiis waxaa la yidhi xamaroo ku dhashtay 1923 okay haddana waxaa la yidhi 1937 waa 14 jir wuxuu uga aaday inuu gumaysiga ka soo xoreeyo dhulkan soomaali galbeed ama ogaadeynaya asoo 14 sano jiro okay haddana waxaa la yidhi shaqada waxaa la qoray 1954 raadi muqdisho asoo gareed ah haddana waxaa la yidhi 1959 shaqada waa laga buriyey ko marka uu soomaali galbeed aadayay banaadiriga ma jirin leegadana ma jirin marka waxaa fiican dadkeena taariikhda leh ixtiraamka nagu leh qolooyinkan buugga soo qoray ama ninka uu soo qoray waxaan ka codsanaynaa inuu caddeen keeno buugga uu ku arkay qoraalka meeha uu ka soo qaatay ama cidda u sheegtay marka arrintaas maxaad ku jawaabilaad abwaan nuuraani waa dadkan oo buugaga qoraayo kale oo waxay doonaan iska qorayaan wax aan jirin iyo see waaye yakhi adeeryaalow taariikh waaye taariikhda weydiya war dadka niga waaweyn weydiya taariikhda ee banaadir markaa yakhi war hala xishooda yakhi war waa lagala xishoodayoo anaga naga xishooda anagana aan idinka xishoona yakhi ma aha nagu khasbina inaan magaca banaadir dhan aan ka baxna yakhi abwaan nuuraani su-aashan afraad way kugu culus tahay laakiin waxaan jeclahay waa sheegaa qowmiyadda banaadir wixii ka soo jawaabi karo inay ka soo jawaabaan adiga inaad ka soo jawaabtid ko waad la socotaa nuuraane xildhibaanadeeni dowladdii hore madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo inaan ku arki jirnay mar allaala markuu shir jiro ayagoo meeha arday camal u fadhiyo ama wax qoranaayo ama kaamarada isku aadinayo qaarkooda waaba la waayey alxamdulilah hadda dowladdii waxaa noo timid xasan sheekh xildhibaanadeeni waxayna soo baxeen cusub 2 shay ko waxaa cajiib ah degmada shingaane oo 2 xildhibaan sanadkaan heshay shariif mustafa iyo gabadheena khadiija almaqzuumi 6 bil waa dhantahay ama 5 bil ilaa hadda degmada shingaane sababtay u tegi waayeen waa wax cajiib ah degmada may ka cabsanayaan
dadka degmada degan may ka cabsanayaan dadka degmada haasto may ka cabsanayaan mase waxay leeyihiin markii nila magacaabo ama wasiir ama jagaad heshaan adigoo xoog qaba taga taas jawaabteedaan kaa rabaa ko tan labaad haddana waxaa soo baxay shay cajiib ah xildhibaanada qaarkooda mar allaala markay meel ka khudbeynayaan way duuban tahay cajaladaana waan haynaa warka afkooda u badan waxaa waaye alxamdulilah dhaha shantiina xildhibaan waa idin joogaan kuwii hore maydin imaa jireen laakiin hadda xaqiinan soo dhicideena ko yani kuwii hore ma dhamaaday mas-uuli waa laga cabsanooya waa noo jiin labo iyo mar allaale markaan ka qayb galayno shirka xildhibaanada markii guddoonka baarlamaanka oo ka hadlayo arrin aroos anaga waxaan ka hadalnaa tacsiyo markuu guddoonka tacsiyo ka hadlayana aroos marka macnihiisa maxaa bay mararka waxaana dhahaa hebelow jooji warka ha ka bixin laynka ama tobiga lagu hadlooyo ama waxa laga hadlooyo hal mar ma dhicin labo mar ma dhicin cajalooyinku waa duuban tahay marka nuuraaniyow arrintaas mana qabataa dowladdii farmaajo waxay naqdeen xildhibaanadeena arday iskool loo dhigaayo dowladdii haddana iyadoo weli meel la gaarin mar la arko war tobigaa ka bixin fadhiiso xildhibaanow af soomaaliya mataqaanid miya maqloosid miya fadhiiso marka maxaa inoo dan ah maxaa lagu daamey karaa warkayga waxaan kusoo gabagabeynayaa dhammaan su-aalaha haddaan idin sheegay nin kastoo qowmiyadda banaadir eh way u furan tahay inuu ka soo jawaabo waa waxyaabaha dhacay iyo dhici doono iyo dhacooyo kow su-aashaan oo haddaan idin sheegay yaan loo qaadanin inaan aniga shaksi ataagooyo sababtoo ah fanka banaadiriga anigana ma lihi adigana ma lihid waa taariikh qowmiyadda banaadir iska leedahay anigana waxaan ka mid ahay ragga qowmiyadda banaadir ka tirsan fankooda ama ay ku faanto aan ka mid ahay xaq baan u leehay wixii qowmiyadda oo dhibaato u keenayo ama qalad jiro inaan ka hadlo ama aan toosiyo dad waxaa jira maangaab ah oo daciif ah soo hadli doono weli waxaan idin sheegaa cajalad aana leega soo dhiibi kanada oo qabiil apologize lagu sinaayo waa fiican tahay iidantaas ma xumo laakiin arrintan aan ka hadlooyo aniga shaksi ma ataagooyo waxaa laga hadlooyaa fanka banaadiriga anigana waxaa ka mid ahay odayaasha ka mas-uulka ah maanta oo nool oo iga weyn ustaad axmed haaji cabdulqaadir nuuraani shariif jeeg iyo intii oday xamar ay joogaan ma ogoli fankeena iyo taariikhdeena in meel loogu dhaco taasna meel oogu baxay walaalayaal barnaamijkan wuxuu soo baxayaa bisha 10 agoost sanadka 2022 saacadu markay tahay 3 habeennimo salaad subax marka la dukanayo magaalada London ay xamarna u tahay 1 saac balanteena waa inoo bisha 10 sidaas iyo nabadgelyo وأجرى
waa u soo digaa ismaa diida karaa waa u diraa waa u soo digaa ismaa diida karaa